السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أصحابتا يقول حرن ورتا سلامة موسيقى يقول سلامية كبعدي وحنقليها لبا قضب كوبات أو روبلي إي أميسون قضب كلابادنا وحواي وزيرك أدميغا إيو maamulka ugu sareeya difaaca qaranka Soomaaliyeed militariga Soomaaliyeed difaaca qaranka Soomaaliyeed midda koowaad horta daan ku hormarno Roble iyo Amison horta waxaa ogaatiin Roble meesha wuxuu ku fadhiyaa kursi matalaade Amison wuxuu ku fadhidaa 52 waddan oo isku imaatay ay rabtana 52daas waddan waxaan maanta dhaarnigu marayaa xaaladan lagu jiro in aynan baasaboorkeena Soomaaliya una ka shaqeynaynin 52daas waddan marka waxaan u arkaa qalad weyn ee Amison ku taageerto madaxweynaha xilkiisa dhacay waraaqada ka soo baxday villa Soomaaliya boqolkiiba 99 uu ku saxsan yahay Roble inuu dhaho Amison danjirahooda inay bedelaan waraaqadaas ugu saxsan yahay caddeyntan ii hayanaan ii sheegay aniga da'deeda aad uma weyno laakiin waxaan ogahayna waxay tahay in Jazeera alcadda airport iyo villa Soomaaliya ay ahayd meel koolada lagu cabo intii hadda dhoway ahayd xasuus anaa joogay dad badanna ila joogeenna way jiraan markii dadkii shalayto maqnaa dib ayaan ina soo xasuusinayaa remember wax la dhaho xasuusin dib u xasuusin adaacadda airport xalane iyo villa Soomaaliya dad bay degaankooda yahay oo la dhaho muduloodii raab ee 91kii kaa saaray adigoo taangiye wato marka xasuusta nabarka kugu yaalo iyo ragga iga dhinteen ee iga hormaray ee duugan dhiiggaas inaad gudi kartiin uma maleynayo ragga u maleeyo inay tahay Muqdisho mudul dadka dhanka wada dhexeeyo ma aha waa mudul oo muduleel leeyahay taas waa inaa ogaatiin aniga leh erey koowaad tan labaad waxay tahay wasiirka admiga wuxuu sheegayo waa sax wasiirka mase generaalka ugu sareeya ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku hadlayo waa buug 2 sano ka hor la xiray
asigana waxaan dardaaran ugu teegayaa adigoo hadda qoriga kugu weyn yahay ya qarax yahay shimikaal laysku keena qarax yahay qoriga kugu weyn ee adduunka kuu ogol yahay adoo taangiye iyo diyaarada haysato ayaa 90 kaa saaray marka marnaha ku seexanin in aad afgembi ku qabsan doonto gobolka banaadir anaga waa kaa horeynaa waana la soconaa mucaarad iyo muxaafidbo anaga waxaan kuu sheegaynaa inaad kaaga dambeyn doono dalka iyo dibaddaba iyo dunida dacaladeeda taasna ku seexo kuna soo kac 12 Abriil sidaa rabtaan dhici mayso ee sidaa anaga rabno ayaa dhaceyso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saa ula socda.